Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo barnaamijkeennii taxanaha ahaa waanu kaga hadlaynay silsiladii caanka ahayd ee Guba. Waanu go'aansanay inaanu dib u soo noolayno iyadoo maqal iyo qoraal labadaba ah, maadaama dhalin badan iyo asxaab badan oo nagu xiran ay ku adkaatay inay fahmaan ereyada qaar ama maqalka ereyada qaar oo ku yara adkaaday. Haddaba waxay inoo joogtay gabaygii 7 oo uu tiriyey ninkii la oran jiray Buraale Cali oo ogaadeen ahaa, kaasoo labada deegaan iyo labada dad waa habar yoonis iyo ogaadeene ka dalbaday inaan isku dirka Cali Dhuux wada aan la yeelin, dadka nabadda ku wada degan ee walaalaha aan dhexdooda colaad laga abuurin, la iskuna dirin maadaama ay isla soo degeen oo nabad ku wada daaqayaan. Haddaba gabaygeenna 8aad maanta ayaa waxaa noo tirin doona Cali Dhuux Aadan oo markii afraad ku soo noqonaya silsiladda Guba. Cali Dhuux gabaygan wuxuu ku sheegayaa inuu ogaadeen si walba iyo si walba u guubaabiyey, asagii guubaabinayay oo dadka iska dhiciya lahaana ay eedii iyo dhaliishiiba saareen. Haddaba wuxuu sheegayaa kale inuu hadda wixii ka dambeeya uusan mar dambe gabay dira ah ama gabay guubaaba tirin doonin. Gabaygeennan 8aad oo ka mid noqonaya taxana aan ugu talagalnay inaanu dib ugu soo noolayno silsiladii caanka ahayd ee Guba, maadaama dad badan ay ereyada qaar fahmi waayeen, ayaa Cali Dhuux Aadan oo markii afraad ku soo noqday isagoo weliba sheegaya inay iidoorka diris yihiin ayaa wuxuu yidhi: dan u baxay ogaadeen hadduu duudsi qaayibay dirirsiiyey diidana inay duul ka nixiyaane, anigii dagaaliminayay igu dabreeyeene, duulaanna way soo baxsheen sida daraawiishe, daabaca raggaa lagu dhuftoo daabka lagu jiiday, daabaqad wejiga bow hadhiyo diilin aan go'ine, ma iyagaan dadkii iyo ahayn duuda nebi aadan, iyaguba dab iyo waa sitaan dabaq rasaaseede, dumbuqooda liishaanka darandaali ma ahayne, dawadiisu waxay saaran tahay daacad loo ridee, waase wuxuu isaga daadsan yahay doocna garanayne, dawdii ha darandooriyeen hana dagaajeene, dushana ha ugu soo dhaamiyeen dumarku haantiiye, dabinkii xumaa iyo sibrar ha isku duubteene, dugsi dhexan leh ha u yuururaan diilalyo ciile, intay dacalo waaweyn dhigtaan dalag ha beerteene, mar haddaanay daaqayn walwaal nimanku dooggeeda oo dibinta saarayn wardheer loona dacareeyey, dan wadaag iyaba waanu nahay dawna wadannaale, bal iidoor maxaa igu diroon doolla ugu sheegan, ayuu yidhi Cali Dhuux Aadan oo gabaygiisii afraad oo ka qayb qaatay silsiladdan Guba. Haddaba maanta inta haynoo joogto gabaygii 8aad ee silsiladii caanka ahayd ee Guba oo uu noo tiriyey Cali Dhuux Aadan oo markiisii afraad ama gabaygiisii afraad noqonaya. Haddaba waa inoo mar kale iyo gabayga 9aad ee silsiladda caanka ah ee Guba oo maqal iyo qoraal labadaba ah.